isbitaalka takhasusiga ee kalkaal ayaa magaalada muqdisho markii ugu horeysay ka bilaabay ololaha qalliinka dhalmala'aanta. cabdiraxmaan daahir gutaale maaliki wariyaha iyaga alaaba nooga warrama arrimaha caafimaadka ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka takhasusiga ee kalkaal ee magaalada muqdisho ayaa ku guda jira diyaargarowgoodii ugu ballaarnaa ee ololaha la tacaalidda dhalmala'aanta dumarka, hagaajinta iyo furidda tubooyinka ugxanta qaada. ololahani caafimaad waxaa sidoo kale qayb weyn ka ah burburinta burooyinka iyadoo loo isticmaalayo qalliimada casriga ah ee caalamka ugu dambeeyey, taas oo aan waxyeello gaarsiinaynin jirka qofka bini'aadamka ah. waa kan agaasimaha guud ee isbitaalka takhasusiga ah kalkaal ee magaalada muqdisho, dhakhtar cabdullaahi cabdikariin cusmaan, oo sharaxaya nuxurka ololahani cusub ee ay bilaabeen. isbitaalku wuxuu sameynayaa furista tubooyinka. tusaale ahaan tubooyinka haddii xer yihiin islaantii ma dhali karto, furista tubooyinkaas oo furaya dadka burooyinka oo kale oo fibroidka, waa burooyinkaasna waa laga soo saaraya iyadoo la isticmaalaya laser tubooyinkaas. iyo dadka hormoonada ka qaldan yihiin hormoonada oo kale daawooyina lagu saxaya. waxyaabaha ugu muhiimsan intaas oo qabanaya duuleerada. dhakhtar Ashiog oo u dhashay dalka Hindiya kuna takhasusay xalinta dhibaatooyinka la xiriirta dhalmala'aanta ayaa ka warramaya dhankiisa dareenkiisa ku aadan in kooxda Kalkaal Specialist Hospital uu kala shaqeeyo ololahani. I'm very glad to be in Somalia, Mogadishu with the team of Kalkaal Hospital. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan imaado Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, anigoo la shaqeynaya saaxiibada isbitaalka takhasusiga ah ee Kalkaal. waxaan halkan imaanaynay ilaa iyo sanadkii la soo dhaafay ee 2015 inagoo sameynay in ka badan 150 qalliin oo kala duwan, kuwaas oo aan ku sameynay lamaanayaal aan muddo dheer wax awlaad isku helin. sida aan ku helnay warbixinta ayna siiyeen dhakhtar Cabdullaahi iyo dhakhtar Faarax, wuxuu isbitaalku diiwaan geliyay in ka badan 150 lamaane inay dhaleen ubad cusub, kuwaas oo qaarkood dhalma ahaan loo keenay isbitaalka labadii maalmood ee la soo dhaafay. taasina ay tahay wax aad loogu farxo. isbitaalka takhasusiga ah ee Kalkaal ayaa sameeya ololaha noocaana labadii biloodba mar, waxaana ka faa'iideysta qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, taas oo u sahlaysa bulshada inay kaga maarmaan adeegyada noocan oo kale ah inay u aadaan dalka dibadiisa. isbitaalka takhasusiga ah ee Kalkaal ee magaalada Muqdisho waxa uu noqonayaa isbitaalkii ugu horeeyay ee dalka ka bilaaba adeegyada la xiriira la tacaalidda dhibaatooyinka dhalmala'aanta ragga iyo dumarka la soo darista. cabdiraxmaan daahir gutaale, Somali News TV, Muqdisho.